صديق أركي يا معها هوس توري حكي كتشراي هذا ويا شو مكره والبلانية ما درت يقول سنتي قعدتي كحنون سيانة كدنقنة قعدتي وين بوكستي فرسمية حيرات ما هوش كوة ضايع سك وأروى لا رأيتي ما درت هاني جاي مري يقول سنتي مريانة هوش أنا غاني يسك يده هذوك صوت دلالي ماذا كتاج ميس هوا كتاجي ياي شغلة بوبسي دول خنا عير waxaan ku ri weligaa meel dhul qoday beerna ha ahaatay waan anigu maraan baadiyaha tagay reerahaban xiriyaha la oodi jiray maryanay malaha aqal Soomaali bad moodaysaa kan ugu ka duway aqal Soomaali ba yaanu ahaanine anigu dawaan kaaga dheereeya hadaad imika sarabada ii dhiibto waxaan ku ri waan dadaalayaa haddii soo waqtigu dhaco waan ku dhiibay adiguna aad tijaabisay waana hawsha wad yaraysanaysaa cabdiyow sidaad u wadaan arkayaaye maanta dhanna ka bixi mayna maxaanu yeelaa waa runta laakiin ay hawshu sida noqonayso maan moodayn waa daashee bal iska yarana sa shaahan kuu keenay walaalada shaahayna soo gaad alla waan ku arkayo waa tamar yaraysay tamar yareeya maanta waxa iga go'aanay inaan hawshan ka farxasho ما شاء الله انك دنبويتي waa tu maryan oo hool hayta damadiina waad aragtaa dee maanta hawshaanu ku dhaqaaqnayani ya cabdi shaqada socota leeyin artooy wal kalenta ku dhisaana cabdi oo shaahi waan ku keenay shuba adigu sax caanihiina wuu leeyahay وما معاميش هذا الشيء حسيس ما شاي من شباسو كاري هاي ادو مدينو maxay kula tahay saaka waxaanu dhisdhisnaani cabdi talow maxay digaag ba waxaan yaabay eedo hoobaad moor digaag inta ka dhiste huntiin sida oo lagan haadano kaalase saaka dagaal ba diyaar u tahay ma istiri ma inin haadu waaye wali hool iyo na dhibaadinin jeesinta hilmaantay maaye soo idinka nabad qaba eedo waxaan ka baqayaa inay cidiba waxba iga iibsan weydo waayo dadkii waxay la wada qabsadeen suuqa ay adaka dhaafo kor wiji furnaantaba waliin dhiko injarne alle dayga daamaanta yaanan isqaadanne eedo suuq iyo na safar dambe ma aboodne mahad ilaahayo hadiiba marin hanignagate suuqii iyo maciishadii iga waran ala qaalu wal kasta koro an ka heen mashal dhiyaayan sheegi ad koran qaada baqaalo doorkan maxaa sababay talow soo kuwan roobabkiina inoo daay roobka dhulka dhan ma helna ogdaa waa runtaa laakiin ma khudaartaa yar awal markay khudaartu yaraato ayay qaaliyoobi jirtay waxaa kale waqtiga isbedelo weele xasku jabo doonaan insha allah ilaahay nimcada roobka ha inoo shubo aamin eedo may kala dheeraado hanin kordhiidi waxba eedo waxaan isleeyahay meherada aad yara balaadhis haa adiina iriida ku kunasada fadhi faa'iido kalena way leedahayoo sidan dee cashuurta igaga yaraanaysa eedlanka cashuurta koo qaada jari usibaas badan koo qaada jarayba 2,000 layba koo qaaday 2,000 beesuwa dhinacaad ka eegaysa maaha marka sanadkii la isku geeyo waxay noqonaysaa lacag badan mar intaan balaanto suuqa roogda dhan la ku qaade dee ogaansho la'aan baa haysee hadday ganacsi ahaan u soo diiwaangeliyaan lacagtu way ka jabnaan lahay yooba qudaarta qaalka ee may kuliyaabasa horta wax kastaaba xal looga gudba ayuu leeyahay ganacsiguna xisaabtan kama soo har dad hoolita suuqa furahayta eeda qiimo suuqa ku hoosay koo ka helaane abdiyo waaniga daarada quraacdii ku dhigay ma quraacada ها حاجيو mar hore ayaan quraacday maxaa kale aynu qabanaa waa si fiican islaantii madiino suuqa ka timid baanu saragnay haye waxa igu tiri suuqii khudaartu cirkaasay maraysaa awal miyaanay jabnayn khudaartu dee imika waaba qayral macquul ayay leedahay dee maxaynu samaynaa marka aylan macaamiishana qiimo jaban ayay kaaga baratay waa runtaasoo arrinkaa waaban ka walwalsanahay dee maxaad uga walwalaysaa kolba siduu suuqu yahay uunu dhaqan haddama innagaad khasaarayn la rabtaa macquul maaha arrinkaasi haddii aynu suuqa ka jabin weyno dadku maxay naga faa'iidayaan sababtan lacagtii baska ay ku raaci lahaayeen u marxaysa maaha maya cabdiyow suuqu sidaa uma shaqeeyee bal aynu xal kala keenno maryanay ma khasaaraad inala rabtaa lacagta aynu rabno inaynu ganacsiga ku bilowno waad og tahay waa runtaayoo haynteennu way yartay balse macquul maaha inaynu khudaar qaaliya halkan ku iibinno waayo cid baan inaga iibsanayn kolley way og yihiin macaamiishu inay suuqa iyo maciishadu qaali tahay bisinka aynu qabanno maya anigaa fikir inoo haya laakiin waxaanan garanaynin si ay macquul u noqonayso fikrad maxaya ka waran haddaynu cid u diranno beeraha khudaartu ka soo go'do oynu innaguna noqonno gacanta koowaad dee maxaa farqiga u dhexeeya haddaynu beeraha cid u diranno iyo haddaynu suuqa ka soo iibino maya farqi weyn baa u dhexeeya waayo innagu gacanta koowaad baynu nahay qofka suuqa jooga kharashkeennu kaga soo iibsan lahayd
way nooga jabnaanaysaa waa runtaa dhinacaaba kamaan eegin wallaahi waa fikrad wanaagsan laakiin qofka aad rabta inuu inoo doono waa aya maryanay dee kolay waayi mayno cid aynu wax yar siino maya warkaasoo dhan dhaaf imika laga bilaabo aniga kula shaqaynaya oo beeraha inoo qabanaya oo khudrad jabanna inooga soo iibinaya ma hubtaa xaaji haa sida ugu dhaqsaha badan baan u baxayaa weliba dee si aynu shaqada horeyba ugu bilowno maad galabtaba baxdid waa si fiican ii soo qabo warqadda iyo qalinkaa aan kaa qorto waxyaalaha aynu u baahannahay hoo xaaji haye soo daa maryanay bal ii yeedhi maxaan qoraa yaasmiinay hooyo baaritaanka uu sameeyey waa dhameeyey hadda waxaa samaynay kursiga ii fariisi waa idinku soo laabaa haye doctore hooyo arkan fadhiso dhakhtarkuu soo laabanaya yaasmiiney maxaad hooyo iminka dhakhtarka igala soo doontay sawtaan iska roona dawadaad qaadanaysa sawtan dhammaatay hooyo ballantii dhakhtarkaynu ku nimid oo ahayd hooyo markaad dawada dhammaysato inaad ku soo laabato waad saxsantay ballantaas sidaa ahayd laakiin hooyo miyaynaan innagu ka baaqan karin ilaa dawo kaleunbuu ii qorayaay hooyo dawadii waxay kuu tartay in la ogaado sow maa anigaaba garanayo wax weyn bay ii tartaye waxaad ku tidhaahdaa dawo kale ha noo qorin hooyo sideenu amri karaa digtoorka haddii uu ku yidhaahdo hooyo way ladantay markaa ku dheh dawo kale ha noo qorin maxaa daawo kale in lagu qoro uga welwelsan tahay hooyo wax kale maahee qarashka carar baan ahay hooyo caafimaadkaaga ayaa wax walba iiga muhiimsan ha ka welwelin kharashka anigan iminka shaqeeye daawona waan ku iibin karaa dawana ha ii iimina iga kaxee halkan dantaada ma taqaanidii hooyo danaan taada ahayn malihi anigu dhegayso haddii uu qofku gaboobo maalinba meel uunba xanuuntee ma dhakhtaruunbaa lagu daba jiraya waynu bixiya bal horta aynu yar sugno doktoorku hooyo wuxuu yidhaahdo waxaan doonayaa hooyo inaad lacag meel dhigato sidii horeyay kaa noqonini waxaa hooyo ila muhiimsan caafimaadkaaga waad ogoyd bil ka hor inaad suuxdin gashay waxaan dhakhtar kugu geeyana aan waayey waxaan ku odhan lahaa un hooyo kayd samayso hadhowto balanba lama rabe kaydka waxaa loo samaystaba waxaa ka mid a inaad isticmaashid hadhow markaad xanuunsatid raalli ahaada waa idinka soo raagi sababta waxa waaye waxa uu shaqeynayay bukaan kale moogtahay waxba maaha digtoore qof anigoo kale unbaad dawaynaysay digtoore adaa hooyada la socday xaaladdeeda iyo burooyinkii ku yiilay alxamdulilah waa taa iminkaba kuu sheekaynaysa waa xusuustaa sidii hore ma ahan muuqeedii sheekadeeda iminka waa wanaagsanahay sow maaha digtor maasha allah haa waa fiican tahay waxaad yeeshaa haddaba dawo kale hay qorina iska tagi ku dheh hooyaday waa cajiib ayadaa dawada isu qoraysa alxamdulilah waaye baaritaankii goortii dhow aan sameeyey aad bay u fiican tahay dawooyinkiina wax weyn aa u tareen inkastoo ay qaali ahaayeen dawooyinkaasi haddana alxamdulilah iyagaa waxba iskaga garatay haddaynan dawadaa heli lahayn waxay geli lahayd makasay qalliin ilaahay baa qalliin iga badbaadiyey hadda daawo yar oo aan qaali ahayn aa u qoraa laakiin hooyo waxaa iska ilaalisaa warwarka iyo fikirka badan sow qof weyn ma aha wax waliba inay sax ahaadaan bay doonaysaa oo iminka ma warwarkaa dawo iga qoraysaa digtoore sidaas ma aha nasashaa u baahan tahay inantaada yaasmiinna u kula dadaasha ilaahayna ha kuu daayo taladeedana dhegayso iminka wax buraa ma lihi sow maaha digtor war faysal maada aqalka ku jira waaba yaaba goormaa timi intaad maqnaydba waan joogay war miyaad cadhoonaysaa weli maya waan faraxsanahay war farxadaad ku wanaagsan tahay cadhadu waabay ku dilaysaa ka bax baan ku odhay dhegaysahoodane anigaad igu lahayd gurigaad igu cidlaysaaye iminka adigiibaa igu cidlaynaya soomaha guriga dee haddaan maqnaado masidada saacada soo wareega jaarku ma yaro gaadhe inaad jaarka u wareegtaad bilowday soo maaha maad aqalkaaga iska joogtid iminka meena nin badan maqnaabaad moodaysaa in badan inaad maqnayd waxaa ii caddaynaya sida quruxda badan inaad u labisan tahay waaryaa faysal inanta maxaad ku haysataa hooyo waxba sheekadumaa naga yar dallacantay hooye saynab sheekadu nagamay dallacmine inankaaga hinaasaaba galay acuudu billaah waa maxay hinaasuhu faysal hooyo ma hinaasi baad ahay kugumaan ogaynbe hooyo inantan iyadaa hadalka beddelaysay waannu kaftamaynay uun hooyo labadan qof iyagaa is sheeko yaqaanee ma inay dagaalamayaan baad moodday hooye saynab yayaa simin haddii kaftankaba laga saaro inankiinu ma oggolo inaan albaabkaa gaadho xitaa jaarka faysalow hadduu warkuba sidaa yahay dee daa qof nool lama xanibi karee inanta danaheeda ha qabsatee horta labadiinnuba dhallinyaraad tihi wixii ay isku qabataanna iila kaalaya waan idinla xallin karaaye hooyo wax dhibii ma jiraan in dhakhtarkii ma ka soo dhammaateen iminkaa baannu ka soconna horta bushaara hooyana burooyinka way ka baabeen alxamdulilah ilaahay baa mahad iska leh dawo kale uma baahna miyaa xanuunka ay hooya ka bogsatay waxaa kaaga darnaa lacagta dawooyinka ku baxaysa lacagta yaasmiin dawadayda ku bixinaysay aad bay qaali u ahayd culayska dhaqaalayna saarnaana qayb bay ka ahayd digtoorku wuxuu yidhi haddaan dawadaa loo heli lahayn qalliin bay ahaan lahayd
hooyo caafimaadkaaga wax walba ka muhiimsan yaasmiina ilaahay baaba garansiiyey hoodanay waad mahadsan tahay waa xilligii qadadii waxba maydaan karsan soo maa maxay karisaa imikaabay socotahay waryaahe ama jaabkiyo idinla yaabini hooyo caafimaadka inoo heshay waa alxamdulilaah waan faraxsanahay maantana anaa qadada inoo wada samaynaya quruxee maanta waad iga cadhaysiisay laakiin waxaan kugu cafinaya hooyo burooyinkaan uga baqaya ay ka baaba'een waad mahadsan tahay gacaliye anna jaarna maan tegin intoon labistay unba guriga hooyo kuusii fadhiista oo maxaad ka waday maqnaashahayga intuu kaa goyn karo yidda hinaasahaga intuu gaadhsiisan yahay baan eegaaya bes haddaba intaa ku daa faysalo mid baan se ku weydiinayaa sidee baan qoyska u caawin karay haddaad dhaqdhaqaaq bay diiday salaamu calaykum hooyo ikraan iska waran wacalaykum wasalaam hooyo waa nabad qabaa iska warna adigu galabta xaggeed ka timid lacag baan baanka soo dhigayay dabadeedna waxaan sidhi inantaadiyo mihiradeedii siima hooyo markaan ku arko waan kugu farxaa culayskay saaran ba iga degahaya markaan kula sheekaysanahayo iyo agjooggaagaba hooyo inan weyn baad imaka noqotay kolay maalin dhow waa layga kaa soo doonayaa hooyo weli maanaaba isku haystay inaan qaangaaray adna guri baabaad ka sheekaynahaysaa maanta qosolkaa yarar waxbaad ku qarinaysaaye maxaa kaa qaldan hooyo wejigaagu wanaag ma sheegaye hooyoy wax saasi ma jidhaane idhama u geysay jaamac nashqadii aad ku qanacday jaamac goordhow baan isleeyahay aad u tagtidee warwarka kaa muuqdaa muxuu daaran yahay bal ii sheeg hooyo wax weyn ma aha hooyo waan iska yara daalanahaye dahabkii cusbaa ma yimid kolkaad wax iga qarinayso si fiican baan u aqaanaa oo heedhe maanta mee qasnajigaagi miyuu maqan yahay hooyo waxba kaama qarin karahaaye maya heedhe bisinkee bal hooyo maxaad iga qarinaysaa hooyo ninkii qasnajiga ahayaad 100 jeer iiga digtay hee muxuu sameeyey hooyo hooyoy ninkii sidii aad ka baqanahaysay buu ii khiyaamay sidee buu kuu khiyaameeyey de hooyo meheradii marka aan xisaabiyey lacag dhan baa maqan oo waa dhacanahay dhacanahayaa naa maxaad tidhi naa imaka xisaabtii aad soo daabacday maxaad ii tusi weyday maya hooyo anaaba ku noqnoqday waxaaba ii soo baxday haddeer inay dukaanka lacag ka maqan tahay oo ninkii qaatay maalintii koowaadaan arkay ayaan ka shakiyey ninkaa hooyoy maxaan sameeya haddeer qof aan iska aaminayn buu ahaaye imisaan kuu sheegayay aduguma waxaad aragtay qof hantadiisa oo dhan ku aamina qof aanu garanayn hooyoy wanigii hore kugu yidhi ninkaa wanaaggiisuun baan arkaya keliya haa wuu ku soo jiitay soo maaha alla waan ka xumahay xoog baan u soo furay albaabka jaamac iska waran dhib ma la isir albaabka xoogaad iskaga celiso waad leedahay calaa kulli xaal aad baan u fiicanahay soo fadhiiso xooggaygu beri hore u haaya ii warran waan kaftamayey gawow kaa dheer ii warran hawlahaaga ka warran iyo carruurtiiba waa nabadqab jaamacow oo maanta qaraamiga kuu bixi maaye goor dhoweyd baan iska baktiyey oo maanta shaqadaa xoog iigu badnayd nashqadii ka warran nashqadihii tan baan soo doortay aad baan ugu qancay qiimaheeda aadna way u qurux badan tahay nashqadii aan kuu doori lahaa baad soo jeclaatay tan baan ku go'aan qaadanaynaa si wacanna waan u dhisaynaa waan sugi kari lahay intaad moolkaa quruxda badan dhisaysaan aad baan u xiisaynaya mar haddaad ka heshay waa khayr igraan miyay ka heshay mise way diiday inkasta oo ay iska mashquulsaneed oo aanu moodalkeedu fiicnayn haddana way ka heshay salaamaad ma dhib baa jirta isir maxaa ka qaldamay waxaa dhacay ninkii qasnajiga ka dhigatay ma lacag buu luunsaday mise wixiiba u wada qaatay markii u horraysayba waan ka shakiyey ikraanna waan u sheegay wayse ay maqli weyday dhallinyartu aad wax uguma fiirsadaan qof walba way iska aaminaan kolkaa waa dhallinyarnimada laakiin may ahayn inay qasnadeeda qof si sahlan ugu aaminto taas baa dhib ah maxaa maqan iminka isree lacag badan oo lunsaday baa ka maqan dukaanka salaamaad way ka soo kaban doontaa insha allah oo iminka ninkii mee miyaa la xidhay maya lama xidhinee bannaankuu iska joogaa gaadhigu wato jaamacow waad yaabaysaa ninkay qasnajiga inantaydu ka dhigatay ee aanay ka shakiin dhib male waynu soo xidhaynaa arrintaasna anaa idinka caawin doonaa hana ka warwarina taas